asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad ku soo dhowaataa casharka 11aad ee taxanaha oo ka mid ah maadada barashada qoraalka af ingiriiska. Okay, waxaan ku bilaabaynaa habka qorista. waxaan aqrin doonaa sida caadiga ah cutub qoraal ah. waxaan kuu turjumi doonaa ereyada kugu cusub. si fiican ula soco si aad uga jawaabtid su'aalaha. Hafsa has an exciting day planned tomorrow. jumladan micnaheeda, Xafsa waxaa u qorshaysan maalin xiiso badan oo beri ah. She will visit a museum with her classmates. Okay, maxaa halkan looga hormariyey ereyga museum ee micnihiisu yahay madxaf? sababtoo ah madxafka ay booqan doonto ma cadda oo ma qeexna. waxaana level 1 ku soo dhiganay waxaa laga hormariyaa erey keli ah aan qeexnayn. After breakfast, she will pack snacks and a notebook. At the museum, they will look over exhibits and learn about history. Ereyga exhibit micnihi bandhig. Afterward, Hafsa and her friends will have lunch at a cafe. They will enjoy sandwiches and juice while discussing their favorite exhibits. In the afternoon, they will go back to school to share what they discovered. Hafsa can't wait for her fun-filled day. Oraahdan fun-filled day macnaheeda maalin xiiso ama madadaalo badan. Okay, waxaan qoraalka kaga tagayaa shaashadda si aad uga jawaabto su'aalahan. waxaad uga jawaabtaa jumlad dhammaystiran. aan bilowno marka. waxaad haysataa 5 ilbiriqsi su'aal kasta kadib. What will Hafsa have first tomorrow? micnihii waa maxay waxa ugu horeeya ee Xafsa cuni doonto berito? jawaabta: She will have breakfast. 2. Where will she go with her classmates? jawaabta: She will visit a museum. 3. What will Hafsa bring to the museum? jawaabta: She will pack snacks and a notebook. 4. Where will they go for lunch? jawaabta: They will go to a cafe.